bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. galab wanaagsan. halkan waa wararka 24 saac kuna soo dhowaada wararka aan idin hayno. waxaa ugu waaweyn ilmo yar oo 9 bilood jir ah oo dhacdo naxdin leh ugu naf waayey gudaha magaalada hargeysa ee somalilan. soomaaliya oo barbaro la gashay eliteria kana hartay tartanka bariga iyo bartamaha afrika. al-shabaab oo toogatay nin ay ku eedeysay inuu ku kacay fal qoomoloodnimo ah. madaxweynaha puntland oo shaaciyey mowqifka maamulkiisa ee sharciga doorashooyinka soomaaliya. shabaab oo shaaciyey magaca iyo beesha ninkii hogaaminayay weerarkii Israel. dibaddan waxaan idinkaga haynaa Iiraan oo ka hortagtay weerarkii labaad dhanka internetka toddobaadkan gudihiisa. waxaad daawateen qodobadii warkeena galab ugu waaweynaa. waa galabnimo axada, taariikhduna ay ku beegan tahay 15 bisha 12 December 2019. haddii aad ku cusub tahay janalkan subscribe si aad u hesho hogaha daasoone halkan aan kusoo gudbino. kuna soo dhawaada warkeennii oo faahfaahsan. aynu ku hormar magaalada hargeysa ilmo yar ah oo lagu sheegay in uu jiro 9 bilood ayaa xalay ku dhintay dab xoogan oo qabsaday hoyga ay ka degan yihiin magaalada hargeysa ee xaafadda lixyada, sida ay sheegeen taliska ciidanka debdemiska ah ee maamulka somalilan. ilmahan yar oo dabkaasi ku dhintay ayaa waxaa hoyga kula jiray 2 kale oo ay ciidanka debdemisku ay soo bixiyeen, iyadoona dhaawac soo gaaray la geeyey isbitaalka weyn ee magaalada hargeysa laguna dabiibayo xaaladoodii caafimaadda. 3 caruur ah oo midkood ku naf waayey dabkaasi ayaa waxa uu waalidkoodu guriga kaga xiray dusha, halka uu wiilka yarna 9 bilood jiray oo isna sariirta saarnaa, sidaasna la sheegay in dabku ugu geeriyooday. taliska booliiska somalilan oo war ka soo baxaya waxaa lagu yidhi alla u naxariisto ilmo yar oo 9 bilood jir ah ayaa ku dhintay, halka 2 kalena iyagoo dhaawac ay soo badbaadiyeen ciidamada debdemiska ee magaalada hargeysa. 2 kale ayaa ahaa wiil iyo gabar, waxaana ciidanka debdemiska la sheegay inay kasoo badbaadiyeen gurigooda iyagu ay ku xirnaayeen, sidaasna ay ku suurta gashay in mid ka mid a caruurta uu geeriyooday ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay taliska ciidanka debdemiska ah ee maamulka somalilan. xulka soomaaliya ayaa iskaga haray tartanka bariga iyo bartamaha afrika kadib markii ay barbaro gool la-aan ah ay la galeen eliteria, wuxuuna ahaa kulankii labaad ee ay difaacdeen shabaqooda. kulankan oo dhowaan soo dhammaaday ayaa waxa uu ahaa mid ku dhammaaday barbaro gool la-aan ah, wallow ay xidigaha soomaalidu ay khasaaro gaarsiiyeen kuwa elitiriyaanka, isla markaana hal mar xitaa goolka soomaaliya aan lagu shuudin wax gool ah. qaranka soomaaliya ayaa haray, wuxuuna shaqada difaacday 3 kulan oo keliya oo guuldaro ayaa la kulmeen kuwa kale, isla markaana soomaaliya ay heleen 5 dhibcood, taasi oo ka dhigan in kaalinta 3aad ee guruubka ee ay ka soo baxeen. cumar cabdulaahi ayaa dhaliyey goolka qura ee ay soomaaliya ka dhalisay tartanka. sidoo kalena saxaafadda uganda waxa ay hadal hayaan in goolhaye Saciid Aweys uu ilaa iyo hadda uu yahay kan ugu guulka fiican tartanka goolka, maadaama uu badbaadiyey fursado badan oo goolhayo weliba arrintaas aysan u suurtageleen. xulka eliteria waxa ay fursad u haystaan in ay soo gaaraan samafinaalka tartanka kadib dhacdadii ay heleen, waxayna kaalinta 2aad ku galeen 7 dhibcood keliya. jabuuti oo la ciyaaraysa uganda ayaa la dhicba noqon karta. soomaaliya ayaana sidaas uga hartay guud ahaanba tartanka bariga iyo sidoo kale bartamaha afrika. dagaalamayaasha al-shabaab ayaa dil toogasho ah ku fuliyey nin kooxdaas ay sheegtay inuu sameeyey fal qoomoloodnimo ah. toogashadan oo lagu fuliyey axmedey qaadimaadi ayaa ka dhacday fagaare ku yaala degmada domburaale oo hoos tagtay degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose. qaadiga maxkamadda al-shabaab ee gobolkaas oo fagaaraha ka aqrinayay xukunka ayaa sheegay in axmedey uu qirtay dhammaan eedeymaha lagu soo oogay, isla markaana ay ku caddaysay maxkamaddu, sidaas darteedna ay xukunku ku fuliyeen. sidoo kale waxa uu intaas ku daray in ninkan uu falkaasi sameeyey isagoo caafimaad qaba, isla markaana xukunka xadka ah
al-shabaab ay ku fuliyeen. fagaaraha lagu tooganayay ninkan ayaa waxa ku sugnaa boqolaal dadweyne ah iyo xubno sarsare oo ka tirsan ururka al-shabaab. ma ahan markii ugu horeysay oo xukun noocan oo kale ay fuliso al-shabaab, waxaana bishii Julaay ee sanadkan kooxda gobolka Hiiraan ku toogatay nin lagu magacaabi jiray Maxamed Aadan Nuurow, kaasi oo isna lagu eedeeyay in uu faraxumeeyay ilaa iyo 3 caruur ah. inta badan waxaa deegaanada ay maamusho al-shabaab ka dhaca xukumo u badan dil toogasho ah, kuwaasi oo qaarkood lagu fuliya dad lagu eedeeyay basaasnimo iyo sidoo kale kuwa kale oo shabaabku ay soo eedeeyaan. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa qaadacay sharciga doorashooyinka dowladda federaalka ah ee haatan horyaala golaha shacabka ah ee baarlamaanka Soomaaliya. madaxweynaha ayaa sheegay in Puntland aan wax wada tashi ah laga siinin sharciga doorashooyinka Soomaaliya ee horyaala golaha shacabka, sidaas darteedna aysan Puntland qayb ka noqon doonin nidaamkaas haddii aan loo ogolayn in talo laga yeesho. madaxweynaha ayaa tilmaamay in loo baahan yahay hanaan qeexan oo cadeynaya nooca doorasho ee Soomaaliya ka dhici karta, isla markaana sanadka 2020 ilaa iyo 2021, balse ilaa iyo hadda sharciga horyaala baarlamaanku aysan ku qaxnayn nooca doorasho ee dalka ka dhici karta. Dani ayaa ku qaadacay kulankan xafladu uu kaga qayb galay magaalada Garowe ee caasimada Puntland, taa oo lagu furayay qorshe howleedka nidaamka guddiga doorashooyinka maamulka Puntland ee uu magacaabay Saciid Dani. madaxweynaha ayaa raaciyay oona uu sheegay in haddii la leeyahay qof iyo cod, sidaasi ayay sheegeen, degmooyinka iyo gobolada la dhigi waayo wax cad la keeno waayo waxa ku xigta in guud ahaanba doorashada laga tago, yiri madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani. sidoo kale waxa uu sheegay in maamulkiisu ay ka go-an tahay in uu qabto doorasho qof iyo cod ah oo ka dhacda deegaanada maamulka Puntland, taa oo lagu dooran doono hogaanka sare ee Puntland. kooxda al-shabaab ayaa 5 maalin kadib waxay shaacisay magaca iyo beesha uu ka soo jeedo ninkii hogaaminayay weerarka lagu qaaday hotelka Israel ee magaalada Muqdisho. magaca ninkaas ayay shabaabku ku sheegeen Maxamed Maxmuud Cabdi oo loo yaqaanay Saadiq, kaasi oo ay tilmaantay in uu horkacayay raggii fuliyay weerarka ka dhacay albaabka hore ee Villa Soomaaliya. sidoo kale waxa ay sheegtay in Saadiq uu ka soo jeedo beesha Xawaale, gaar ahaan jufada reer Ugaas, isla markaana uu muddo ka howlgalayay gobolka Hiiraan ee bartamaha dalka. Saadiq oo 24 jir ahaa ayaa sidoo kale ka qayb qaatay dagaalo kala duwan oo kooxda al-shabaab ay la gashay ciidamada dowladda iyo kuwa nabad ilaalinta AMISOM. sidoo kale waraysi laga qaaday ka hor inta uusan dhicin weerarka, isla markaana ay baahisay idaacadda Al-Andalus ee afka shabaabka ku hadashay, ayuu Saadiq kaga hadlay arrimo dhowr ah oo ku aadan dagaalka al-shabaab iyo taariikhdiisa, isagoo uu sheegay in uu ku dhashay gobolka Baay ee Koonfur Galbeed. weerarkii Israel lagu qaaday saacado badan ayaa waxa ku dhintay ilaa iyo 5 ruux oo ay ku jiraan askar ka tirsan ciidanka ilaaliya madaxtooyada ee Koofi Castan loo yaqaano, waxaana sidoo kale halkaa ku dhintay ilaa iyo 5 qof oo ka tirsanaa shabaabkii weerarka soo qaaday hotelka Israel. markii saddexaad ayay al-shabaab weerar ku qaaday, waxaana lagu dilay saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. wararka 24 saac ayaad warkan ka daawanaysaan. galab wanaagsan. markana dibadda, dowladda Iiraan ayaa fashilisay weerar labaad oo dhanka internetka ah muddo 7 gudihiisa, waxaana sidaas sheegtay wasiirka wasaaradda isgaarsiinta ee wadanka Iiraan. Maxamuud Jafad ayaa sheegay in weerarkan lala bartilmaameedsaday nidaamka elektarooniga ah ee dowladda Iiraan. wasiirka wax faahfaahin ah kama bixin weerarkan iyo sida uu u dhacay. Arbacadii ayay ahayd markii Iiraan ay ku andacootay in weerar lagu soo qaaday baraheeda internetka, isla markaana ay ka hortagtay. bishii Juun ee sanadkan, nidaamka hubka Iiraan
ayaa waxaa lala bartilmaameedsaday weerar dhanka internetka ah sida ay sheegeen warbaahinta ka howlgasho gudaha wadanka Mareykanka. madaxweynaha wadanka Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa sidoo kale waxa uu maalmihii u dambeeyay xiisado siyaasadeed kala dhaxaysay dhigiisa wadanka Mareykanka taa oo ku aadan markii la weeraray markab saliid oo ay leedahay wadanka Iiraan. guud ahaan baahinteennii galabnimo galabtu waan dhagay intaas. haddii aad ku cusub tahay channelkan subscribe dheh si aad u hesho xogaha daasoon ee halkan aan kusoo gudbino. waana mahadsantihiin. nabadgelyo.